maanta waxaan ka hadli doonaa aniga arthroplasty ama bedelista kala goysyada magacayga Dr. Xasan Salaad Fiidow waxaan ahay orthopedic and trauma surgeon new elected general secretary of SOO waxaan ka howlgalaan isbitaalka Rajab Tayyib Erdogan markaan fiirino historyga xubno bedelista ama kala goys bedelista qalinkii ugu horeeyay ee la isku dayay in la bedelo xubin wuxuu ahaa xubinta sinta ama kala goyska sinta waxaana la sameeyay 130 sano ka hor 1891 waxa sameeyay dhakhtarkan loo yaqaano Thimstock Gluck wuxuu rabay markuu bilaabay shaqadan in bukaano uu ka daaweynayo TB taasoo saameysay kala goyska sinta in uu u sameeyo xanuunkaas wax ka yareeya marka asagoo isticmaalay marka prosthesis laga sameeyay ivory ama ganaha maroodiga ayuu wuxuu sameeyay noocan oo maxaa la yiraahdaa bedelista sinta marka noocan waa kii ugu horeeyay adduunyada lagu sameeyay muddo kadib dhakhtarkan loo yaqaano arthroplasty noocan ka sameeyay 1923 wuxuu sameeyay plaster model oo ka samaysan caag oo kale korna laga saaray wax u eg synovial membrane si joints-ka marka dhaxdiisa la geliyo kadibna ay stimulate gareyso ama ay kiciso inuu sameysmo cartilage muddo kadibna laga bixiyo bukaanka laakiin bukaanadii lagu sameeyay waqtigaas maysan u adkaysanin ama uu qaadi waayay prosthesis-ka la geliyay jirkooda sababtoo ah uu ka cuslaaday uuna ka xoog badnaay wayna jabeen badankooda ugu dambeyntii Dr. John Charnley oo loo yaqaan the father of modern total hip replacement dhamaadkii 1950kii ayuu wuxuu soo saaray implant asagoo ka sameynayo acrylic with cement laga soo bilaabo waqtigaasna revolutionka ama inventionka kala duwan ee ka soo baxay arthroplasty-ga uu sii socday laakiin base waxa uu ahay dhakhtarkan saas darteedna loogu magacaabay the father of modern total hip replacement marka waqtigaas marka laga soo tago sa u jeedin marka ugu horeyso waxay ka bilaabatay bahal yaro kubado kala ah oo la fadhiisinaya sinta madax yara loo yeelay tubba loo sameeyay markii dambe at the end ilaa ay ka imaato noocyo kala duwan oo ilaa hadda adduunyada la gaaray xilli qofka specifically asaga loo sameeyo nooc ku haboon total knee replacement-ga sidoo kale late 90s ko bilaaway early 20th century wuxuuna ku bilaabay noocyada loo yaqaano interpositional and resurfacing knee arthroplasty kadibna muddo kadib saa u jeedin sawirkan nooca ka dambeeyo ayaa soo kordhayay ilaa iyo hinged constraint nooca soo baxo unicorn oo qayb ka mid ah jilibka kaliya la bedelayo Soomaaliya marka uu maana markii arthroplasty ama jilba bedelista window-ga nooga furan ama waxa aan ka aragno waa wax aad u yar oo kooban wuxuuna bilaabay waqti aad u dhow oo ah bilowgii 2010 meelahaas inkastoo waagi hore la sameeyay jiray laakiin aad uu wali u xadidan yahay wax laga helo wadanka waxyaabaha hadda wadanka lagu sameeyo aad ay qaali u yihiin availability way adag tahay shirkado aad u xadidan ayaa ka shaqeeya perception-ka ay ka haystaan marka ummadeena ama Soomaalida joint replacement-ga waxyaabo kaayaabiyad ka arkaysaa waxa ka mid ah marka uu horeyso qofka ka safar gareeyo osteoarthritis inuu baxo raadiyo traditional healer-ka qoriga ugu weyn oo wata marka waxa waaye gubitaan in la gubo jilbaha marka la gubo infection ka dhalan karo septic arthritis iyo waxyaabo la mid ah marka resources-ka ama modern medicine-ka waa last resource ay soo aadaan dadka Soomaalida marka ugu horeyso mar walba waxay tijaabiyaan traditional treatment-ga waxaa jirtay qiso bukaan aan mar nagu soo booqday clinic-geena la cabanayay xanuun jilbaha ka hayay wuxuu u tagay traditional healer markuu isticmaalay dawooyin badan kadib uu ficnaa waayo traditional healer-kii wuxuu sameeyay shaka aad cajiib oo aan fahmin jilbihii wuxuu uga duray benziin baawar la kicinaya marka jilbihii maysan kicin way sii dameeno septic arthritis soo qaaday bukaanki markaan aspiration oo jeclaan lahaa inaan sawirkiisa ila waayo laakiin way suurtagal weysay aspiration lagu sameeyay benziin ayaa ka soo baxay jilibkii iyo malax la socoto
taas oo keenaysa marka bukaanada dhibaato aad u badan waqtiga la joogo marka xaadirka Soomaaliya multiple facilities isbitaal kala duwan lagu sameeyaa bedelista kala goysyada oo badan isbitaalada way sameeyaan implant availability way soo fiicnaaneen wali laakiin ma gaarsiisna xadkii aan rabnay waxaan rabaa marka experience-geena centerka aan ka shaqeeyo muddadii la soo dhaafay 10 years-ka aan joognay waxyaabaha aan kala kulannay over 410 patients ayaan qabanay 30% bukaanadan total knee replacement ahaayeen 35% total hip replacement u sameynay 186na waxay ahaayeen partial hip replacement ratio-ga markaa fiirisid male to female 68% female ahaayeen majority-ga badankooda right side hal dhinac midigta laga qalay majilib ama sin left side kana 35% ahaayeen afar case waxay ahaayeen bilateral labada sin ama labada jilib badana hip replacement-ga waxa ku sameynay lateral approach kuwa aad u badneena waxaan ku sameynay posterior approach indications-ka badana waxay u badnaayeen qof soo jabay ama degenerative arthritis sanadkii laga soo bilaabo marka 2016 ilaa 2024 ka joogno maalinba maalinta ka dambayso bukaanada iyo tirada way sii kordhayeen bulshadana way baranayaan keysar inay la wago kamid ah keysaskeena keyskan waa 32 jir neglected la dayacay hip fracture femoral neck fracture waxaan u sameynay total hip replacement post operative 2 months bukaanka socodkiisa waaye markuu ugu horeyso wuxuu lahaa labadaba way kala gaabnaayeen laakiin hadda saa aragtaan way sameeyeen keyska labaad waa 65 jir male ka jabay sinta muddo 10 sano ka hor laakiin aan laga daaweynin taasoo sababtay sidoo kale inuu jilibka degenerative arthritis noqdo waxaan u sameynay total hip replacement iyo total knee replacement post operative 2 months bukaanka soconaya maamadan waa 91 jir waxay ka mid ahayd kaysaska bilateralka sinta koowaad isbitaal kale lagu sameeyo ku yaala magaalada sinta kale ka jabtay muddo kadib 2018 left side iyo right side maamadii soconaysana waatan keyskan asagana femoral neck fracture wahay waxaan u sameeyay total hip replacement sidoo kale 68 years old patient-gan sidoo kale wuxuu ahaa degenerative arthritis of the knee waxaan u sameeyay total knee replacement this is range of motion oo maxaa la yiraahdaa 2 months socodkiisana waa kan bukaankan hip neglected hip dislocation more than 20 years waxaan u sameeyay total hip replacement with femoral osteotomy and shortening odagaan wuxuu naga soo booqday Mandera sidoo kale bilateral knee arthroplasty u sameeyay 4 months this is another case of total knee replacement neglected hip fracture plus acetabular fracture waa case kan waxaan u sameeyay cage with posterior column fixation iyo total hip replacement cemented ah so challenges kan la kulanno ama soo koobayo waa lack of implants qalabkii oo kala duwanaa inuusan helin dhakhtarka perception-ka bukaanada u baahan in la bedelo maskaxiyan cost-gu aad qaali u ah traditional healers ku u baahannahay inaan saaxiib la noqono waxaan u mahadcelinayaa star iyo sanmad oo qalabka caafimaadka lafaha bedelista sameeyay jilbaha keena adduunyada maanta waxay marayaan robotic assisted replacement in la sameeyo waxaan filaynaa kambaniyadaas inay na gaarsiiyaan heerkaas aad u baahantiin